وحبا كدعي حمد الله قبطه قران صار بي u baahan tahay quraan saar xadiiskan dhageystay xadiisadan dhageystay ilaahay baan dib u weydiistay afis waxaan ka dalbanayaa walaalaha Soomaaliyeed ee laki ugu horeyso Farid walaashi laki xaaji wacays waxaan leeyahay laki ay waa ku taaganahay afi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابته وسلامتهن ميل والبو دونيدا دافيدا كجوكتان ومركلي ولالكي نحن في حاج محمود وإذن كلا هضلا يقنانا ميديا فضلا هدي أكبرسب تاي channel كيغا سبسكرايب كدبكسي وشير كلا دافي ليكنا داكسي دنبالك أما ديغالك خورالك سيدا هاوسو دادو شلي هدينا داون جرتاي سبسكرايب لان فضلا مانتي نوصر أديغو مع السن قبل الكنا فروسي إيكوسو غاران مو خالو البان سوقلنو isku soo noqoto aan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkani runtii waxaan ka falcelin rabaa ama reaction aan ka bixin rabaa muuqaal ay soo doobtay ee walaasheeda qaaliga ah Xamda Kalgacal oo raali gelin ah ayadoo si geesanimo ah dadnimo leh damiir leh u soo fadhiisatay barteeda YouTube-ka raali gelin buuxdana ka bixisay gefkii iyo qaladkii ay u geysatay fanaanadeena qaaliga ah walaasheeda laki xaaji wacays qofka hadduu nool yahay damiirkiisa nool yahay macnaa shaqeynayo dadnimana ku jirta hadduu khalad galo qaladkiisa waa ka soo noqdaa Farid runtii maadaama aan soo qaadano qofka xumaantiis leh in aan ka hadalna ma ah wanaaga uu sameeyeyne in laga hadlo iyo qurux badan tahay waayo wax ku dayasha mudan kalgacal weerarkii lagu hayay laki xaaji wacays waxay ka ahayd door weyn ayay ka waday Farid ayada bareteeda snapka iyo facebooka iyo youtube-keeda waxay ka waday hajuum aan caadi ahayn Farid hadda waxay garatay inay khalad weyn gashay walaasheedana dulantay dulmigii ay samaysayne ay ilaahay ugu toobad keentay walaasheedana ay afis weydiisatay runtii wax lagu farxo waay qofka khaladkiisa doo garto Farid لأنه النبي يقول لي كل ابن آدم خطاؤون وغير الخطاؤون توابين قفل بوقفا نك وغير بدن وحوي قفك خلدكيسا قرته هذا نك توبت كانوا سي أن وح أوغانو مو خالكان أنا سلا داون وحبا كدعي حمد الله قبطه قران صار بي u baahan tahay quraan saar xadiiskan dhageystay xadiisadan dhageystay ilaahay baan dib u weydiistay afis waxaan ka dalbanayaa walaalaha Soomaaliyeed ee laki ugu horeyso walaashi laki xaaji wacays waxaan leeyahay laki ay waa ku taaganahay afi qof bilaadan aan ahay khalad baan ka galay khaladkan ka galayna wuxuu yahay sida u jeedeen muuqaalkan waa walaasheena Xamda Kalgacal ayadoo afis dalbanayso khaladkii ay gashayna qirsan afisna ka dalbatay walaasheeda laki xaaji wacays muuqaalku wili uu socdaa aan wada daawano snapchat-kayga aan dhigay aniga la soo diray qof Ingiriiska jooga ii soo diray qofka Ingiriiska jooga kulay anaga iyo asaga ilaahay ba is og waxaan leenahay isku xishood ilaahay ka cabso mar dambe ha noo soo dirin waxaadan hubin amba waxa ma garanaysaa ay hablaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkooda ha ii soo dirin way ana jirwarkayga waa la iga leexiyay Xamda waxay leedahay hadda muuqaalkaas waxa ii soo diray qof Ingiriiska joogo waxaan leenahay waxaadan hubin mar dambe ha noo soo dirin sideeda banaan Soomaali waxay tiraahdaa qof dakhran hada aragto nin dooxan ayaa gadaashiisa laga filashtaa haddii aragto qof dakhran oo dhiigayo adigana baangadaadii garuunkaaga ha qaadano oo dagaal ha waxaan jeeranine qofka ka dambeeyo fiir asagana ma dooxan yahay حمد وحمد وبسنين مقالة لو صدري يصبرده ويقاضي سبرتة يسودي جيسي أيضا ويركو لكي حاج واعس هذا مخالكي أو لكي لوجو بين أبورتي مخال جبر الصوماليات أيوها وحال ليه جبر ناس مركي أي أركتي مخال كذا حتى وحي هلس وجرتا إن النفس دي شو ورا فرابضن أيال سلا الأحمر سنة عبتي يعني جبردي waxay taagan tahay ugu dambeyn nafsadeeda inay halis gasho yaa sabab u ah muuqaaladaas dadka intay soo saareen ayagoo dad u careysan ayagoo laki u careysan oo raba in ay ku ceebayaan laki waxay
xumaan u geysteen nafsadeeda halis geliyeen gabar kaloo masaakiin oo Soomaaliya marka inaan anigu ma garanaysayay raali gelin bixiyo ilaahay cafis weydiisto ummadii aan ku gafay cafis aan weydiisto shacabkayga aan dhagahooda ka wasaqeeyna cafis aan weydiisto marka calaa kulli xaal ونعيم جوكر iyo maxaa dhalaki xaaji wacays waxaan leeyahay walaalahay Soomaaliyeed oo cafiya cafisku wanaagsan yahay kulli ani maxaa la dhahaa xalay tole kama seexan habeen horna kama seexanin dulmi baan ka galay waan dulmiyay waliba aad waxaan u dulmiyay gabadha la leeyahay laki xaaji wacays sidii runtii sida maqlayseen ama u jeedinba muuqaalka waxay tiri laba gabdhood ayaan dulmiyay labadaas gabdhood dad ayaan ugu hidiyay فريد waxay halkaan noogu sheegi doontaa marka inay laki xaaji wacays wacday cafis weydiisatay oona la cafiyay la yiri walaasheed hadaa khaladkaaga garatay aniga cafis iyo musaamaxa iga tahay intaas waxa ku garan kartaa marka qofka haduu qalbigiisa fiican yahay wanaagsan yahay haduu khalad galo khaladkiisu waa ka qoomameeya oo waa raali gelin ayuu bixinaa qofka la raali geliyayna asagana haduu qof wanaagsan oo fiican yahay waxa ku garataa isla markii raali ahaanshaha waa qaataa walaalkiisna waano ayuu siyaa xabadkoona ku qaataa reer xamar waxay tiraahdaa sir ma qabe saab ayaa biyo qaado hadda saab biyo ma qaado ogtiin shabaq waaye laakiin waxa loo yiri nin ilaahay la jiro ama ilaahay yiri waxba laga ma qaadayo muuqaalka wiil waa socdaa aan daawano waad aragteen inaan waxyaabo magacyo xun ugu yeeray mukulaasha UK sidan keer aan iri laki horta markaan mar eegay anigu wax badan waan aflagaadii tiri muuqaalka la ii soo diray laki meel fara badan ay iskaga akaayeen sidaas darteed aniga waa indha daraaray ee leedahay wax waan kala saaran waayay laakiin muuqaalku waa muuqaal jiro waa gabar kale laki shaqo iyo shaqo waxay ku leedahay ma aha marka aniga xataa magacyo xun ayaan ugu yeeri iyo wax la mid ah marka calaa kulli xaal hadalka waxba lama sii saarnaado laki xaaji wacays waxaan ka galay dambigii aan ka galayna walaashii waan weydiistay cafis xalay tolo markii gabadhii kala sawiradeedii lay keenay videogan faafinanay oo sawiradii gabadha kala saca lay keenay waan naxay gabadhii kala dambi baan ka galnay xamdi hay faafin bay tiri waxa ku fariimay dad soo farta anigii baa isku naxay waa gabar Soomaaliyeed sharaf iyo ciise waxa meeshan ku sii jirto marka aniga laki xaaji wacays oo kaliya damba kama gelinaya leedahay حتى جبدة كلا الدم بيان كلا أيضا فورا لا صدرت عدد صدرت ويلاده حمد ولا عليها إفافين أيان سبردي إيمو خالدي إفافيني فريد مو خالك حمد كالجعل وات أركتين السيدة رالجلين السيدة جيسين مدله أي أورال جلسي ولا شيء أما فنانة دينا لكي حاج وعس رنتو حواي دعوة إيداد ما فعله دعوة إيداد ما فعله هذا كهر waxaa jirtay naag jiis kuwa garguurta ah laamiyay taagneed laamiga gowgiisa ay taagantay ama mersha biyadiga sida u taqaanin waxay rabtay dhanka kale in ay u gudubto baaburta sidaas ay isku dhaafay marka qaab ay u gudubto ay weysay marka dhanka kale inta waxa ka taagan nin gaari gacan la ah waa fiiri uu yimid wuxuu yiri soo kor gaarigii uu saaray jidkii dhanka kale ayuu u gudbiyay gaarigii ka degtay waa fiiris waxay tiri ilaahay dacwi iyo dood ma ku geliyo ilaahay dacwi iyo dood ma ku geliyo warnaga tagasir ninkan ducadiis baa soo arkayba waxa qaldan waxa igu duceys ma waasis dacwi iyo dood maxay geliyaas dhacna nin gaarigiis wato soo shaqo tagay inuu shaqo aada aan ahay dacwi iyo dood maxay geliyahay ayadoo rabto inay fahansiiso dacwi iyo dood inaysan faa'iido lahayn iyo waxay sameeyay turbadii waxay bilaad waa khaylisay gaarigiin waa ku dhigtay iga soo gaara dadkii dhan waa soo aroori sida ogtihiin Soomaaliya gaari gacanka ugu badan waxa la haajir dadka curyaanka ah maxaa jira ninkan gaarigeyga iga xoogooya ay tiri anoo ii shaqeeya gaarigan inuu igu qaado meeshii rab igu geeyo ayaan ku heshiina haddana gaariga anaaba la hawidhooya bacna gaarigeyga ayuu igu haystaa Soomaali waa ogtahay dumarka in loo hiiliyo loo dagaalamo haddana haddii curyaan tahay iskaba dhaafo ninkii tumoole lagu bilaabo khacdaboole lagu bilaabo garuumeysna lagu bilaabo dhinac kasta laga khacdabeeyo barkii la khacdabeeyo waxay tiri hadilina oo ha garaacino kaadiya faraha ka qaada
iska dhaafa iska baxo waxeegi lahay dhaafo cali riyaa hadday ayada dhihi laheen hal iska daaya annaga kaba ayaan gaasii lahayn waana ku xiri lahayn wadada waaweyntahay halkan ka baxbax ninkii waa baxay geeska laamiga uu istaagay zaanus usoo fiiriyay qalbiga wuxuu ka leeyahay ar ibna aadan abaal ma lehe naag asxaab ma lebe saama ii gashi anoo laamigii soo dhaafi maysaan yeeshi ayada darsi u dhigoosaa marka waxay fahansiinaysaa markii usoo dhabanada saas u haysto fikra ay aragtay kaalay tiri oo imaad asxaana ii sameysiyay tiri anigoo laamiga taagan jidkana gudbila ayaa gaarigaaga igu soo qaatay dhanka lahayd wax aan kugu abaal mariyo ayaan waayay in aan ku duceeyo waxaan kugu duceeyay dacwi iyo dood ilaahay ku mageliyay adigana ducadii ayay si aan wax ku fahansiin ayaan dadka ugu yeerayay tiri wixii ku gaari karaa la noqo dacwi iyo dood lagu sheegay saan leewaay adigoo shaqo u soo baxay ama asxaan sameeyay danahaaga u galaayo howlahaaga wato ayaa lagu maagayaa qofka asxaanka u sameysay soo dhaweysatay ayaa iska ka maagaya marka dacwi dood ilaahay mana geliya lagu duceystaa ilaahay hankeena mana horkeena ma lagu duceystaa marka muuqaalkayga ku dheeraan maayo kulli tabe ee fanaanadeena khaaliga ah muuqaal ayay soo duubtay inkastoo aan ka daahay muuqaalkaas in aan ka falceliyo ayadoo garab istaag u sameysay YouTube leeda dhan oo ayada soo difaacay garabkeedana istaagay u hiiliyay runtii anaga muuqaalkaas markaan aragnay sababaha aan ugu hiilinay laki waxay ahayd inay walaasheena tahay in jeex jirkeena kamid ay tahay in ay fanaanadeena tahay xadgudubkii dhibka loo geystayna aan ka danqanay in aan dareensiino oon garab istaagno فريد sababahaas ayaan anaga u garab istaagnay una difaacnay laakiin man laa yashkuru allah laa yashkuru annaas sida caadada ninkan ilaahay u mahad celinaynin dadkana uma mahad celiyo ayada sida lagu yaqaano garaadkii caqliga leh way soo fadhiisatay shacbigay la hadashay youtuberada la hadashay dadka qarne waa ay la hadashay fariin qurux badan oo muhiim ahna waa ay soo gudbisay dadka markaas oo youtuberada xaqa ka hadlani oo soo mahad celisay taasna waxay u tahay youtuberada dhiirigelin anagana aad ayaan ugu faraxnay waxaan leenahay laki waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad noogu soo mahad celisay anagana doorkeena waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay hore u soco cadowgaaga cagta hoostiisa muuqaalkaygan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa dhammaan asxaabta waa salaamantiin meel walbo dunida daafeeda ay joogtiin waxaan idin leeyahay nabadino iyo nolol kulanto